waxa uu ku dhacay jacaylkeeda waxa uuna guur u soo bandhigay wax ka badan 16 jeer markii uu guursaday ayaa waxa kadis ku noqotay in ay tahay haweeneydani ma dhalays waxay ka dalbatay in uu iyada ka tago oo uu guursado haweeney kale oo ilmo u dhalaysa waa maxay waxa la yaab kale ee uu sameeyay kadib markii uu dhageystay waxa ay ka dalbatay waa qisada murugada badan ee dhabta ah ee actarada caanka ah ee u dhalatay wadanka Turkiga ee Beran Saat in badan oo kamid ah jamaahiirta adduunku waxay haweeneydani ku qiyaasaan inay tahay haweeneyda ugu quruxda badan wadanka Turkiga malaayiin taageerayaasheeda ah oo caalamka ku nool ayaa waxa ay rajeynayeen inay haweeneydani xiriir la sameystaan wadamada Carabeed haweeneydani waxa ay ka tahay caan iyadoo ay sabab u tahay musalsaladeeda la jecel yahay ee aadka loo daawado gaar ahaan waxa aad loogu bartay musalsalkii caanka ah ee jacaylkii la mamnuucay Soomaaliduna ay aad u garanayaan musalsalkan iyadoo ay sabab u tahay caanimadeeda iyo quruxdeedu ayaa tobanaan rag ah waxay u soo bandhigteen guur ragaas waxa kamid ahaa heesaaga ugu caansan wadanka Turkiga ee Kenan Doğulu bilowgii hore waxay diiday dhowr jeer oo kama aysan helin marnaba warniyo kaama helin bay tiriyee ka qulqul meesha asna waxa uu diiday inuu isdhiibo waxa uuna u bandhigay jacaylkiisa wax ka badan 16 jeer iyadoo ay sabab u tahay qosasho la'aantiisan la yaab kale ayay waxay aqbashay ama go'aansatay Beran inay noqoto gacalisadiisa waxa la yaabiyay kadisa ku noqotay 16 jeer oo uu guur u soo bandhigtay markasta oo uu soo bandhigayo guurna waxa uu soo iibin jiray faraanti aad qaali u ah markii ay ogaatay inuu u qabo jacayl waali ah ayay waxay aqbashay inay guursato farxadii uu ka qaaday mehersigeedu waxa uu aqalgal aan caadi ahayn uga sameeyay wadanka Mareykanka waxay sheegeen dadkii xafladaas ka soo qayb galay in ay xafladaas ku kacday qiimo gaaraya 1 milyan oo lacagta liirada Turkiga ah guurkooda kadib Beran waxay u maleeynaysaa inay ku noolaan doonto inta nolosheeda ka dhiman nolol aad ay farxad uga buuxdo balse ma aysan filayn in ibtila weyn ku soo socoto waxay ku riyoon jirtay in markii ay guursato ay dhali doonto caruur waxay isku dayeen iyada iyo ninkeedu in ay fuliyaan riyadaas ay lahaayeen balse riyadaasi waxay u egtahay mid aan u suuroobi doonin Beran waxay aaday isbitaalka si ay u ogaato waxa ka khaldan oo ilmaha u dhali weeyday balse waxa ku dhacay argagixii ugu weynaa nolosheeda kadib markii ay ogaatay natiijada baaritaankeeda waxay dhaqaatiirtu u sheegeen inay haysato mushkilad aad u weyn ayna ay tahay waxaan suurtagal ahayn inay ilmo dhasho bilowgii hore way rumaysan weyday waxa dhacaya waxayna gashay murugo aad u dheer waxay gashay isdaaweyn kasta oo u suurtagelinaysa in ay xitaa hal ilmo ah hesho ninkeeduna waxa uu u diray isbitaalada ugu qaalisan wadanka Mareykanka waxa uu ku bixiyay $10 qalimo caafimaad loogu raadinayay xaaskiisa balse nasiib xumo Beran waxay ku soo laabatay wadankeedii iyadoo ay wax u tari waayeen isbitaaladii qaaliga ahaa iyo qalimadii lagu sameeyay intuba mushkiladu waxay uga siyaadaysay dhinaca qoyska ninkeeda iyagoo oo saarayay culays aad u weyn sodohdeed ayaan si aan habooneyn ula dhaqmaysay kadib markii ogaatay in ay tahay madhalays maalin ay israaceen oo ay soo wada dukaamaysanayeen ayaa waxa dhex maray muran aad u dheer Beran waxa ay falcelin ku samaysay islaantii sodohdeed ahayd iyadoo ku tiri idda arimahayga iyo afaarahayga ka bax saxaafadda oo dhacdadaas ka warramaysana waxay tiri aad ayay u qayrinaysay oo xanaaqsaneed iyadoo dadkii macaamiisha ahaa ay u soo wada jeesteen dhankeeda dhacdadaas kadib Beran waxay qaadatay go'aankii ugu qaraaraa nolosheeda waxay qaadatay go'aan adag iyadoo odaygeeda ka dalbatay in uu furo waxay u sheegtay in uu istaahilo in uu noqdo aabe oo uu helo riyadu uu ku riyoon jiray waxay u raacisay raadso gabar aan xanuunsanayn oo awoodda in ay ka yeesho aabe wada hadalkaas kadib waxay uga tagtay guriga isagoo oo kaligiis ah waxayna aaday qoyskeeda waxay filaysay warqadii furiinkeeda balse waxa dhacay wax aan la filin guriga reerkeeda ayuu aaday waxa uu u sheegay in wax kasta oo dhaca uusan ka tagay marnana uusan cidlayn doonin wuxuu ku yiri muhiim ima ahan caruurtu waxa muhiim ah inaad adigu garabkayga joogto hadalladaas darteed ayay Beran waxay ku go'aansatay in ay mar kale gurigeedii ku laabato odaygeedana ay la joogto waxay isguursadeen 2014 ilaa maantana waa ay wada joogaan gurkoodana waxa laga soo wareegay muddo 8 sanadood ah ugu dambeyn bay tiri wax noloshu macna ii sameyn mayso haduusan ninkaygu ila jirin inaan waayaana waxay burburinaysaa noloshayda hal qof baa waxa uu ka yeelayaa in uu ku dareensiiyo in caalamka oo dhani uu ku garab taagan yahay kumanaan qofina waxay ku dareensiin karaan cidlo iyo kelinimo
si aan muuqaalo badan oo noocan oo kale ah idinku soo sameeyo ha ila dhaafin subscribe, like, follow iyo share. waa Cabdullaahi Cabdikariin Khaliif oo idin leh nabadgelyo. salaam markasta.